بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا سؤال بدن baa la soo gudbiyay marka wixii isku mid ah waan isku xambaaraynaa su'aalahan wuxuu ahaa inay ku kooyin baaboon hadii shaqadu dheeraato waa laga boodi su'aashaad su'aasha koowaad wuxuu yiri saa'ilkanu qofka dhintay ma su'aasha koowaad waxa weeye hilibka عودينتو ما بنايا هيلبك عودينته كل سؤال ما أنا فاهمين هيلبك عودينتو ما بنايا ساسي قرأت السؤال سؤال على ما فاهمين واحد لقى والله سؤال شكله وحجري وحان روائن برتو ما فهمت سوى ما فهمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hadduu macnuhu yahay dadka la cuudinay mingiska iyo walaayadan iyo waxaan cuudinta la yidhaahdo xoolaha loo qalo hadday sidaas tahay macnaheedu waxa weeye hilibkaasi waa xaaraan maxaa yeelay inta badan jiman iyo balaayaa loo gowraca ama dariiqo shareecada waafaqsan iyo sabab aan shareecada aan waafaqsanayn baa dhihi lahaa ayaa lagu gowracaa sidaas daraaddeed hilibka neefka marka la qalayo ama waa hilib ahaan in loola niyoodo oo la yidhahdo shaatu laxmin siduu nabigu sal alla alay wasalam ama hadday cibaado tahay sababtii ay shareecada cibaado ka dhigto inuu gowracu ku yimaado haddii la waayo marka wuxuu noqonayaa mid aan sax ahayn wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخ جزاك الله خير الجزاء سؤال حقته waxay tahay canshuurta qaadideeda diintu maxay ka qabtaa asal ahaan canshuurta nabigu sal alla alay wasalam xadiiduu ku tilmaamay gabadhii xadka laga oofinayay oo intay zinaysatay nabigu sal alla alay wasalam dhagaxa lagu dilay ayaa nin saxaabada ka mida markii la dilo dhagax lagu dilay nin saxaabada ka mid ah wax ka sheegay kadib nabigu wuxuu ku yuri sal alla alay wasalam waxaa ka sheegi fa inahaa taabat tawbatan low taabahaa saaxibu maksin laqubilat min waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeni lahaa midka muxuu ahay canshuurta qaada alla ka aqbali lahaa laakiin nidaamkaasi waa markii nidaamka islaamkiiyo axkaamkiisu shaqaynayso haddii ayna axkaamta shareecadu shaqaynaynin oo dowladaha lagu hoos noolya marka ayna ahayn dowlada markaa shareecada ku dhaqmay ama dowlada gaalaba lagu hoos nool yahay markaa masaladu waxay u noqonaysaa waaqica markaa jira iyo nolosha markaa jirta iyo ruuxa muslimka ah maxaa u suurtagal ah iyo maxaan u suurtagal ahayn marka waxay galaysaa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa mararka qaarkoodna waxay qaadanaysaa haddii noloshii lagu saleeya canshuuraha oo kuwii shareecadu ay meesha ka baxaan cidda markaasi ku salaynaysana dee aynan ahayn cid shareecadii iyo diintii wax ku maamulaysahay bulshadiina markaa ay intifaacsanayso canshuurtii la qaaday ila waxbaa ku kala socda canshuurtii waxaa ku socda waddanka dhan baa ku kala socda nabadgelyadii baa ku socota ciidankii baa la siinayaa wadooyinkii baa lagu dhisayaa waxaan oo dhan wuxuu ku socdaa noloshu ku kala socda dowladda wax ku kala wada waa canshuurtii soo maa markaasoo kaleeto waxa weeyaan haddaad tidhaahdo shareecada xarimtay kadibna aada meesha ka istaagto noloshu markaa way ka duwan tahay waxay u baahan tahay marka meel walba fiqigeeday leedahay fahamkeeday leedahay waaqiceeday leedahay waaqica marka aan ku noolahay iyo xadiistii nabigu masalada ka sheegay sal ala sl iyo xukunka kutubta ku qoran say isu dabaqi lahaayeen masalo sahlan maaha taa waxay u baahanta marka in lagu baraarugo xukun ahaana waa ka aan hore u sheegnay wallahu aclam جزاك الله خيرا سائلكن wuxuu leeyahay adigoo mas'uul ah mushaharka dawladda hadduu kugu filnaan waayo lacagta dawladda ma kaga darsan kartaa ruuxa dowladda u shaqeeya
dowladda heshiis buu kula jiraa oo shaqada ku qabanayo mushaar go-aan baad leedahay adaana raalli ku noqday inaad mushaharka ku shaqayso mushaharkaasi wuxuu ku gooyo wax ka badan ha qaadan haddii uu ku anfici waayana isaga tag laakiin haddaad kala qiil baxdood tidhaahdo waan gaajaysnahay oo waan iska guranaya hadda gaajadaadii cid kuu xadidaad u baahan tahay oo kaa korayso soo maa baahidaadii cid xadiday u baahan tahay haddiise lagugu sii daayo o idhahda baahidaada ka gudo hada rag baaba taajiriin ka noqonaya xoolihii dadweynaha sidaas daraaddeed wax xadidan haddii lagu xadiday waxaaga xadidan ku gaabso isku filaysay laakiin xoolaha dadweynaha iska ilaali leanna xoolaha dadweynuhu way ka dambi weyyihiin xoolo dad khaasa aad ka qaadatay xoolaha dadweynaha markaad qaadato imise milyan baa ku nool waddanka intaasoo milyan oo ku nool xoolihii ay lahaayeen markaad qaadato oo maalinta aakhare ay soo sabtaan maxaad siin ood maxaad kaga bixi kartaa salaad u qaybsato ma haysid sako u qaybsato ma haysid cibaado u qaybsatood ku fakato ma haysid dembiyadooda inta la qaado baa dusha lagaa saari kadibna naartaa lagugu suga hal ruux laakiin haddaad wax ka xaddo ama ka dhacdo hadduu bari soo istaago ilaahay hortiisa ilaahu salaada iga siiyo kan iga qabaadhihi salaadiila un sii xoogaa yaroo deeqa waa laga yaabaa inaad hesho laakiin aadamahan faraha badan xoolahooda haddaad isku qaadato yaa weyn laka balaayaa kuu taala nacam jazaaka allahu khayran sheekh su-aashana waxay tahay waxaa la yidhi ilmaha waddada laga helo ee lasoo korsado aabo lama dhihi karo dhaxalla kuguma laha kugumana abtirsan karo hadday sidaa tahay markuu weynaado maxaa loogu qori dukumentiyada iyo dhalashada waa sax wey ilmaha hadduusan aabbo lahayn wuu leeyahay in la koriyo korintii bini aadam wuu leeyahay daryeelkii bini aadamna wuu leeyahay haddii hooyo ama abtiyaal si gooniya u daryeela uu leeyahay iyagaa waajib ku saaray haddii uusan lahayn oo banaanka laga soo qaadayna ummadda meeshaa degan bay mas-uuliyadin ka saaran tahay in ilmahaas la daryeelo la koriyo laakiin abtir ma leh aabana ma leh ayib hadduu weynaado maxaa la samaynayaa hadduu weynaado waxaa dukumentiga loogu samaynayaa isagoo og inuusan aabba loo ahayn dhaxalkana waxba ku lahayn caruurta iyo gabdhaha ninkana uusan maxram u ahayn isagoo saa og haddana haddii ay noqoto laga maarmaan in documenti loo sameeyo ninka korsaday magaciisa oo loogu samayn karaa maxaa kala duwan marka waa iska documenti ahaan laakiin wax xukun oo ka dhalanaya ma jiro noloshu qasabtay laakiin axkaamtii ilmanimo lahaan jireen ma laha oo maxay ka mid tahay dhaxalkii ka mid yahay maxramnimadii ka mid tahay ma kama dhalanayso haddii si kale loogu samayn karana nin baan arkay ragga wadaadada ka mid ahoo ilmo yar intuu banaan ka soo qaaday buu koriyey marka wuxuu u bixiyey markuu u magac bixiyey kadib ayaa wuxuu aabba uga dhigay cabdullaahi aadam buu u bixiyey aabihi xaggee buu ka keenay wuxuu yihi horta addoon ilaahay u yahay waa cabdullaahi aadamna wuu ku abtirsadaayo awowgii buu ahaa nabi aadam marka waa cabdullaahi aadam haddaad cabdullaahi nuux aadam ka dhigtana waa sax nuuxna ugu maraa aadamna uu ku dhammaada addoon ilaahay u wey meelaha qaarkood laakiin waxaa laleeyahay dokumentigii waalidka hala keeno sharci lagu gooyo sooma markaasoo kale waa daruuro ahaan in ninka koriyey markaasi loogu gooyo aabanimo waxaa kaloo suurtagal ah ilmaha marka lasoo qaada hadduu yar yahay in naaska la nuujiyo oo haweeneyda ninku qabo oo kale ruuxa korinaya inay naaska nuujiso hadday naaska nuujiso hooyay u noqonaysaa dhanka nuugmada ninka qabana aabbuu u noqonayaa oo dhanka nuugmada ah gabdhihiisiina maxram buu u noqonayaa
بس عيش الصومالي كما هم يكملوا وإننا نقول لكن عرب تتقان مركز سي حرج إلى اللي يقولوا كله حتى هدو وين هذو ويسووا وين لسوقته إذكر الله وصل الله يقولوا كده كله هيركي يا قبله يا حاس كنا كل رفاض هيا لعذا ترى كلا وقت النبي كنا لعذا صلى الله عليه وسلم نيكي ها هاي مولى حذيفة نوها نيكي ها ما اسمه يا سالم مولى حذيفة كورم الرقم رسالة لديك مركا نيوي وريرك كل شيء مولى هو أبو كلام الحديث كلام الرير كله لوري وأنا نيوي حديث البخاري يقول قبل ما أصور شيء الرسول كان منه يقول يكون ولي هاي أنا ونمر بسكما إجابي كرو نبي وحكومه صلى الله عليه وسلم نوتشي محرم بكون نقول أرضعيه تحرمي عليه نوتشي ونوي ورسول كان نوي وقرد لسير النوتشي مركب الحديث كاسر المسألة علماء القارئين هذا صارم بخاص كواهي وقيس كاسي خاص كواهي قارنا إليه حاجة سوكل هديت مضمين لمدة منسوق من حديث وحكم وصعونيا لكن هدي له حال لمدة وكل وعائشة ليث بن سعد ابن حزم أيمن وعسى قبل ومسألة الله يقان الرضاع الكبير كله يقان مركا حرجية قاركو مركا حريص ماشي مادو شريعة ويفضضين وحبيب أهلي لأن أصل كذا وحكم الأصول هذا رفع الحرج إنه مدة عريري حريص كله يقان هي تيسير يفضضين بكبيرة والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ. سؤال شحنت وحيت هاي قبضوا هدي مهر كذا كوي بستوب دلقضاها نينكم يوسع عشان كراه ولما وحكوا قيد السؤال عشان يدو عديدين كبحضي نكسي قيدين. هدي وفورتانكو كل عضو إن دلقضاها وحلا داف صدق خلع بالإله هذا خلعنا فرين عادية وكلام معه وحبوك قدوي وعيرو قدوي وحكم له نينكو هويني إذا ودلقضه هذا وحلا صدي مسو الشنكرو لأن خلع وطلق بائنا وهل دلقضه هو أنسو عيش لهين حتى عدد كبح ذي بهذا الذي هذي حتى عدد كنت مسو الشنكرو صوت معيد هاي صوت وحبا لك لقطي صوما قبل أن دلقضه هذه سخيار نوع ما استغفرني حولات غير قادت أذيك هو حسناف صدي هذانا إن أود لبوسي يسوع عشقي صوت قلمه صوما أساس درادي مسوع عشان كرتيد سيدا سجدك قبل حينك يدوتين البوسي والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ. سؤال شحنت وحيت هاي طبعا سؤالها مرة قاركود بروح صور وسكفوا الله عن خلاصين ده هذا اللي رفض مركز سؤال وحيت هاي دوادا عندها لقول العيون صون كمتش بالساعة ما يصاب حماية على الصحيح عندها داوة لقول حتى هذا دون تقدرته بالكاد داوة حماية البيصون صح حتى مد لقول العيون سيد الصحيحة لقاها لقول العيون حتى صون حماية البيصون إنك صوم مذهب كفقك وعلامة الشافعية دولي هاي ويتشبيلي ساهدنا سيد الصحيحة ما تشبيلي سو أثار تصرح سلف كسر المرك الله فيه صوت وحوه شرع وحي الشيكتي وحي عند يعبد أمر معنى أبا تشبيه صونك مرك وحي لها لقوش بي عندنا معه عبدنا معه الله معنانا معه وكذلك دكت وحي لقوش بي عروشه ومفقود له علاش يدك يسمونه عيال هذا علماء التشريح عافماتكم أي حقيقيا بكم تهاي دكت وحلو شوي علاش موجود لكن حلقة يبغى يقولوا قالوا جوف كمسكحة قاعدة وحيلة مركب ماذا كل إله وحي جوف كجاربة صون كواتشية جوف وغيرنا مركب أما عندنا قط الجوف كعلاش أما جوف كمسكحة مركب تلقي الجوف كمسكحة وحي قال صون كتشبين يعني دليل لهاي أصل ما عبادة وحاجبية وكدليل له عبادة هذا يقول تلتو حرنتو وحي عن دليل له هي المشركة
marka arrinkaasi madhab ahaan khilaafaha ku jiro laakiin sax ma aha waxay dhal lagu shubay iyo wax dhal lagu shubay soo qabay maayo Allahu a'lam. jazakallahu khairan sheekh. bangiga aan ku shaqaynin shareecada islaamka deyn ma laga qaadan karaa? maya lagama qaadan karo. runugta ribada ku shaqeeya deynta aad ka qaadato waa deyn ribo saaran tahay. ribaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha shareecadu aada u fogeysay ilaahayna iyo rasuulkiisuna dagaalku ugula galaya. bangigu hadduu islaamig yahay mucaamaladaad weliba ka qaadanayso iska hubiso waa suurtagal haddii mucaamaladu iyo caqdigu saxsay, laakiin bangi ribowi ah mucaamaladiisu waa ribo wallahu aclam. jazakallahu khairan sheekh. agoonka xoolihiisa cidda gacanta ku haysa maxaa uga bannaan inay ka isticmaalaan? في سورة النساء الله وحكو شيء تبارك وتعالى أقونتا حوله ضدك معمولية كعنت كوهية أما كنعسيهان أما إلالين كعنت وهي الله وحكو تبارك وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روحي ككفتومي كرو هانتلونا أقونتا حوله اسك إلالي una ilaali oo u rogrog oo waqti geli waxna ka qaadan. ruuxi faqiir oo baahan agoon xoolaheed wax ku gacanta ku hayo wax ka cuno si wanaageeda la yaqaan wax uga cunbo quraanku yiri. macruufkaasi maxaa la yiraahdaa? culimada qaar waxay lagu ka deynsan, qaarna waxay warmeehe dadka ka shaqeeya xoolo ayna lahayn ku shaqeeya curfi ahaan waxay qaataan buu ka qaadan karaa. taasana sax. مثلا حوله وصلنا يروح بقول أنا عشان يسمع بقول كيف ينتهي وكقاتا الدليل هذا بقول كيف فائدة صباح الله بعتم بقاتا روح كشة يا حوله وصلنا هاي كعوانتك كشة يا فقير كأنا أنت وصلك له كقاضي كرا ها مركا قرصاص إليهم قالوا إليهم روح أجيرة والله شقالة يستي محوك الجورة وكقاتا وكلو كقاضي كرا مركا ما إجارة ومضاربة فقهاء انت مويل هذا marka waxaan xoolihii aqoontana xadgudub ku ahay asagana dhididkiisii uu ka shaqeeyo u dhigma ayuu xoolaha aqoonta ka cuni karaa maadaama uu wax kala lahayn aqoonta xoolaheedana ka shaqeynay. naam jazakallahu khairan. su'aal xigta wuxuu yiri saailkani dhulka ganacsiga ah sako ma laga bixinayaa? jawaabtu waa haa. laana dhulka ganacsiga u yaala waa curuudu tijaara, waa badeecada dukaanka taaloo kale la mid sanad markuu soo wareego waa la qiimeynayaa, kadibna haddii qiimaha soo baxay uu gaadho qadarkii sakadu ku waajibaysa waa laga sakeynaya. haddana sanad markuu soo wareego saasaa loo qiimeynaya. waa sida dharka oo kale, kabaha dukaanka yaala, badeecada dukaanka taaloo kala mid yahay dhulka laga ganacsanayo maaha dhulka mulkigay ku yaal, maaha midkaad kirada ka qaadanayso ee waa midka la rogrogayo waad gadaa waad sii gadaa haddana waad sii gadaa. dhulkaa u yaalla iibka waa badeeco oo kale waaye, sanad markuu soo wareego waa la qiimeyn, sakadan waa laga bixinaya. nacam jazaaka allahu khayran sheekh. saailkan wuxuu yidhi lacagaha waraaqaha ah ribadu ma gashaa ma ka suroobaysaa? ribadana noo yara faahfaahin sheekhana jazaaka allahu khayran buu ku leeyahay. ribada faahfaahinteedu waa masalo fiqih oo kutub dhan baa ka hadasho. hadda su'aalaha jawaabaan laguma koobi karee, laakiin lacagaha hadda la isticmaalo sida saxiixa ribadu way gashaa. lacagihii waqtigii nabigeena la isticmaali jiray sal alla alay wasalam qur-aanku degayay waxay ahaayeen dahab iyo fiday ahaayeen soo maa. laakiin lacagihii lacagnimadii waxaa ka riixay oo ka qaatay hadda lacagaha dowladuhu sameeyeen. lacagaha ribadu waxay ku gashay cilatu riba waxay ahayd athamaniya, shay fuqahadu sheegaan oo isku raacsan yihiin. lacagahaasi waxa ribadu u gashay waa lacagnimada, dahabka iyo fidada waagaa ribadu u gashay. kuwii booskooda galay axkaamtii waxay qaadanayaan dahabkii fidadu lahaan jireen. saas daraaddeed marka la isku sarrifayo lacaguhu hadday isku dowladi soo saartay waa inay isleegyihiin, waa dahab iyo dahab la isku gaday oo kale.
laba dawladood hadday soo kala saareen waa dahab iyo fidda la isku gaday oo kale way kala badnaan karaan laakiin haa-an wahaa-an hoo oysi waa in meesha lagu kala qaato axkaamtii lacaguhu lahaayeen dahabka iyo fiddada axkaamtay lahaayeen bay lacagahani qaadanayaan sakadii waxay kaga waajibaysaa qadarkii ay kaga waajibi jirtay dahabka iyo fiddada marka halkaasay noo marayaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh wuxuu leeyahay saa-ilkani hantida dowladda guriga laga dhiso shareecadu maxay ka qabtaa waa su-aashii hadda aan ka jawaabay tii dhaweydu bay la mid tahay gurigaad xoolaha dowladda ka dhisatay musuq maasuqa ceeli oo dowladda ku xel ilaadu malihid mood adi ma lehid waa xoolaha dhacday khayaano ku qaadatay musuq maasuq ku qaadatay waxaad u helisaa dowladdii bulshada matalaysa ama haddaad ka baqdo dowladda inaad celiso in lagu xidho balaayo kugu dhacdo intaad iibiso masaakiinta dhulkaa joogta u qaybi laakiin adigu ha sii dibacsane haddaad ka dhimatoo lagaa dhaxla xataa maalinta qiyaamada adigoo baa lagu qabsan oo lagu soo istaajin marka hanti dadweyne laysuguma dhowaado waa miday shareecadu u taqaano quluul bay u taqaano quluulku waa hantida caamka ah oo si xaq daraa lagu qaato dadka saa wax ku qaato maalinta qiyaamada waxay imaanayaan ayagoo waxay saa ku qaateen xambaarsan guryo waaweyn rag xambaarsan oo warshado xambaarsan ayaa berri la keeni doona marka guriga berri adoo tunka ku sida iyaadan imaaneen toobadkeeno iskana celi wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkana wuxuu leeyahay yani qoyskii isqabay qofta ee gabadhii iyo wiilkiiba waxay iloobeen qadarkii meherka markaase waxaa loo xalinayaa gabadha haddaan meherka la halmaamo wixii lagu meheriyey ama meherkaba laga aamuso waa laga aamusi karaa marka laisu meherinayo waxaa la dhihi karaa gabadhaydii hebla ahayd baan kuu meheriyey meherkiina la sheeg waan kuu guuriyey meherkana waa laga aamusi karaa haddii marka laga aamuso la sheeginba ama inta la sheegay la halmaamay waxaa loo noqonayaa waxa la yidhaahdo mahrulmithliga meeshaa la joogo gabdhaha maxaa lagu meherin jiray waktigaas haddii la yidhahdo markaa waxaa lagu meherin jiray waktiga 4 qaalmood 4tii qaalmood baa loo noqonaya hadday noqoto 50 gram oo dahabaa lagu meherin jiray 50 gram oo dahabaa loo noqonaya waakada halkaasa laga qiyaas qaadana loo noqonaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aashanna waxay tahay waa su-aashii dhallinyarada marka wuxuu leeyahay gabadha ilaa 5 sano ma shukaansan karaa ma la sheekaysan karaa hoteelada marmar ma ka soo cashaysiin karaa la soo mariyo 5 sano sheekada socota xagee ku dhammaan doonta 5 sano shukaasay socda ma jiro marka waan shukaansanaya hadhihin howlaha qarsoon ee idiin qarsoon soo bandhig si looga jawaabo laakiin gabaad ha ka dhiganin oo ha ku dhuumanin waan shukaansanaynaa shukaansi 5 sano socda ma jiro laakiin waxa 5 sano socda wax waa edab darro yaa edab darra 5 sano socda iyo wiil iyo gabadh ajnabi kala ah oo sheekadooda iyo xiriirkoodu gaadho heer ayna shareecadu ayna banayn hadal la difan dumarka markuu ilaahay la hadlay wuxuu ku yidhi muxuu ahaayey falaa takhdacna bilqowli fayatmaca alladii fii qalbihi marad dumarkii nabiga lala hadlay sal alay wasalam hadalka ha damcinina oo ha jilcinina oo hadday hadalka damciso midka qalbiga ka jiran baa damac gelayaa ya shukaansigan aada maqlaysaan dhalinyaradu hadda leeyihiin sanaduu soconaya hadalka lagu wada hadlayo labada isqaba xataa kuma wada hadlaan sooma war soomaha dhalinyaray ya ninkii sameeyey baahaa dhihi marka waxaasi wax saxsan maaha waxaasi shukaansi ma aha wuxuu ahay diinna maaha
وهذا ضر هذا اللي يشبه أنت اللي يرى إيتمت رسولك محوها الشيخو شو كان سيبا مدن قد حي كدي من وارسكو خلدناي يا وارسكو خلدناي إلا سكو خلدنا محاكينا يا شرعه waxay tiri zinada iyo xumaanta saaha sameeyna ma dhihine haw dhawaanina way tiri haw dhawaanina maxay tahay insha Allah ba irida meel ku ka xidha meel ku irida ka sii xidha insha Allah ba haweeney ajnabi ah la gooni noqon hadalka hadan xiriir khaldan hala yeelanin hala safrin adoo maxram u ahayn guri gooni hala fadhiisanin waxa soo dhamaado diiday waxa lagu hortagaya xumaanta dhexdeeda hadii marka wixii la soo jeedo hada waxa xigow xumaantu ila dhaco wala tan dhalinyaradu aafada la socoto sidaas daraadeed gabadha inaad is aragtaan dhimale inaad sheekaystaan muddo kooban na dhimale haddii guurku idinka soo go'o wardan boo sii soconaya ma jireen ehelka u gudbo gabadha aabaheed weydiisankeeda kadibna gudagal inaad guursato haddii kaleeto soo maaha gabadhana calafkeeda adigana calafkaaga bannaan kala mara waqti badan inta la iska lumiyo oo 4 sano 5 sano 6 sano la isdaba socdo waa kuwa ugu roon oo xaraan fara badan iyo hadal iyo la galo oo marmarka qaarkood gabadhiyo jirkeeda qayb qawan yahay ay sawirto ugu dirto oo la isku aafoodo ayaa marka dambe waxa laga yaabaa in la kala dhaqaaqo maan dhow yahay intaan jijigu igu weydiinay in la yaraa wuxuu sheegow 4 sano gabadha soconay waxa jijiga taariikhda 4 sano wada soconay sheeka naga dhaxaysay kadib gabadhii xumaan baan ku sameeyay oo xumaan baa naga dhacday kadibna qalbigaygii baa ka go'ay oo waa nacay ballantii ma uga bixi karaa walida khasaaro dhacay fiir baas maxaa keenaya edab darrada waa marka shukaansi ma waxaad wadaan dhalinyaro waa edab darrada tooji wallahu a'lam jazakallahu khayran wali waxa socda su'aalihii dhalinyarada wuxuu leeyahay siigaysigu ma xaraam ba مسألة اليرماء مسألة اليرماء ومسألة فقهية هو يبقى هذه علماء ظهري وبعض لهم سيد الصحة أنا وحوي شهوة إن لقوب قدسو وحان حاس كاقاهين أما الضوء تاداهين وحرام قرآن إلهي وحكوين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وحان حاس كاقاهين الضوء تادينا أهين كل الشهوة كل قد وحد قد بيقال مركا عن تاد ما حاس كاقاه يا لو على قصر ربي حاسكي يا معي حاسكاقي يا أضونتها فعنتو حاس نقومها أضون نقومها معو سوك يا مركا فمن ابتغى وراء ذلك الله وضع ويدي كسو عليه سوك ليس حد قدر وايه نبي قالنا صلى الله عليه وسلم وحرمي دب لو حرمي بانو كجرا عذر راك النشاء لباتوي باك النشاء روح بالي دويد انت انا تشجيع جوي سيشنا بيو بدي ويقول لسانو استعماله وليga kari way oo naftiga barat oo si walba yeelay oo dhaartay oo ilaahay wallahi inaan ku noqonay oo dana ku noqon oo dana dhaartay oo dana ku noqon markii dambe kaliya halis bay waxa iga gaaray dhibaato baaris baan dhagay taqaatay taabtay waxa lagu yiri kaliyaha ku khatar bay ku jiraan waxa keenayna wax weey waa waxaas waxay keenayaan cudurro fara badan oo laga yaabo markaad dhalinyarada tahay inaadan dareemin laakiin kugu soo bixi doono waana wax shariicadu u diiday waa shariicadu seeda meel fog wax ka fiirsamo dhibka ka imaanaya baa loo diiday sidaas daraadeed haddii ay shahwadu ka tambadoodan isxarin kareen gacanta iska daayeen guurso bismillah inta tiraahdo ya حتى إسلام وحوجا جناح سيرة هاي سطور وحوجا كاجا بانين بسم الله
يا قد حتى هذا خرج يسمي واي مش إن شاء الله تعالى من هذا ويصيروا كل دورتين لكن حاراتها قريب واحد اسكده مصلحة أنا كم جرتو آخر هذا يدون كان لبا بسوق يعني الله أعلم. جزاك الله خير الشيخ. سائل كنا حولي روح عن ألعاب كدعي هذا أنا عن وايي سام حليا. كدعي. ألعاب عن كدعي بهذا كور روحين هذا قرن مايو روحها يميل تشتون قرن مايو مركزين بيجي سام وصل الله طيب سام ألعاب حليا عن كدعي خلاص. حولها ردي لهيد للقروة ومن علماء الهدان المجهول كالمعدوم مركو حالو بحنايا صالح العنك طلبتي أذكر على القيمة هذه واحد كليسات أنا هقول المسلمين ودويك عيلشة اسبيتال لدى مساكين تا تمارس أنا هقول المسلمين كقبي وصدقين إلهي مرفض مكان انت النوش عين الروح ولالك الحوريسي دحدي الهي دمله هو يدي ودعي سقي ودعي حوله يسن الصدقه اذكر الهي دمله هو يدي والله اعلم. شيخ جزاك الله خيرا. سائلك انه حولي هي مركان استيجيسانيو كادو igama dhamaato san yeela waa waswaas waay kaadi aan dhamaan inuu iska socoto waa waswaas mid baa wuxuu leeyahay sheekhow markaan istijaystoon salaada galo qoyaan baa iga yimaado طيب marka aad waxaan weydiiyoon ku yidhi marka adoon salaad tukanayni aad istijaysato oo aad iska tagto qoyaan ma kaa yimaada ma igama yimaado qoyaanka salaada ku khaaska marka oo salaada markaad gelayso oo kaa imaanaya mararkood waa waswaaskaasna waa halis oo ruuxa wuxuu gaarsiin karaa nooc waa junuun sidaas daraadeed nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waswaaska ka hortagaba xadiis nabiga ka soo ilaa nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka waswaaska noocaas qaba marka aad istijooto oo sidaada dhamayso meesha ku aadan xubinkaaga taranka biyo ku sayd markii uu shaydaanku ku yiraahdo qoyaan baa ka soo baxay waxa leedahay warmeehe waa biyahan anigu isku sayray Soomaali warmeehe waa biyahan anigu isku sayray shaydaanka isaga dhaliso laana waxaan xaqiiqo ma aha Soomaa midkiin buu iimaanay nabi sallallahu alayhi wasallam markaasuu isagoo salaada ku jira dabada ka afuufaya waa shaydaan markaasuu ku leeyahay neef baa ka soo baxay nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam salaada ha ka bixin ilaa aad ur ka dareento ama shaqada maqasho hadaysan waswaas hadaad waswaaska hor orodood xal istiraado godkii shaydaanku ugu tala galay dabinkiisa ku dhacdo kadib uu kaala gudbi doonaa marka damar waxaad gaari doontaa inaad xalba u weydo أنا كشكي حالي مسافين ورا كشكينا وقعد حرته إنه كتبت أول سنجري فقه الشافعي وفقه قيمة بدل لكن بعد كظهاراتك وحو سمينا يا فقه دلال فربضان باكوتشرا دلال كاسد في قاطع المركب وحو جينا يا إن أي حدود التلاوان وسوء إليه هاي وحظاهري ومرة بهلك أحرقه وشيله وباش وقول روح بدل بقاري وسواس طبعا موجود بيها وسواس كاس مركز ناس كحلو باهي حربوها حرب عنهم كتبته وأقصد وسواس كاس أورع فالصبي اللي مركز عاجز بولان صنيا وسوشو قليا مركز وسوشو كسوبح وسوي استيشتكو بيه عاجز الوصول لمي مركز وسوشو كسوبح وبناك يمازو هايو الشيطان مركز كله وحن كاب قيون الله ما تسموك عليه بيه هيرا بيه الصوت القداس بيه هرب القداس قادر يا مرض وبدلنا يا هذا وكله يا وصار نقلقها يا مسوش سكنا مالي هذا نمر كلا وكجل صلاة حرشة صلاة مركو حرية هذا وصلي وقول أحفظ يا كي شيطان وصلي صلاة كلا صلاة الصلاة ما أقول الله بيستاهل سبكو كذا وقاسوا حرية وصلي وصلي أصلي ما حلو كرو
سوء أصلي أولي أيام صلاة كبحينا أفرت ركعون وكبحينا بركي صلاة دي لقب حوضتك دريران أيو آذاني إلا الآذان الشيطان كان له إريا صلاة حي على الصلاة حي هذاك وحكم يعدنا عقيم مركو صلاة دي قل إسيراد أصلي مرة في كربه صلاة عصر كبحي وقت قالوا يسوي ويلكي ماشا تاقر أصلي كواهي صلاة دي دور كابيحي عصر كبابيحي متو كان كربه سو ساوية مركي واقو بريو برقي لقارو بلد ويلي هاي ماشا تشوفني وبيجا بلدوينه انتو قال اسقي دركي سبا يوبيجا اسكو طوري اسقي دركي بس نظيف ليه سومارتا marka waa cudur ha hor ordin daaway haysleen ma xidhmina salaada ku adkay hadheen soomaarta qaarkood ku hay at-tahiyatu ku hay oo dhaafila wax kale ma waa waswaas midka qaarkood faatixadu ka galaya mid dahaaradu ka galaya mid wuxuu ka galaya guurka iyo furitaan in dhalinyaro ay ilaaloodu ugu yiri sheekhow hadal kasto iga soo baxo waxaan moodayaa inaan naagtayda furay bismillaah hadaado waa furanta u iga noqon marka baasameeya marka waxa ku sida in maqayb oo inuu leeyahay ruuxu markuu heer ka gaaro حتى وفرنت هذول عبك وفرمان لأنه والي هو نوع جنون واي مجنون كان عبك وفرمان عن كوضع انتو سر هالكاكو قارسيني انت دو حاجات اسلاد هاي ضمن هوكل محال الرواء مركو كوي دادو صلاة كوبا حدنا يالكذا هذا كله قصعه مركو كوي دادو استيجادي وحبا كم مقن هاتده يعني حبيراتي هل شيء كبر ميزان مركز سيدا سميس إلهي نما قنقشو وان هو إنا إذا وقت دير كوو قادرين وكاتك يا مركز وصواسك وكابح يا وانا حافي مالي والله أعلم جزاك الله خيرا وحولي هاي قام سحدان ساعة بدان عيارو مدن ببيقو تاهي هاي هدان عيار كم حيوان عياران وقت بدو كله بيها waxyaalaha ciyaaraha horta wax lagu ma kala qaadan karo Allahumma saddex ciyaarood oo nabi sheegay sallallahu alayhi wasallam tartanka fardaha iyo tartanka geela iyo toognisadka toogta saddexduba jihaadka u khidmeynay saddexda waxaan ahayn oo ciyaara waxba lagu ma kala qaadan karo nabi sallallahu alayhi wasallam ciyaarta si ahaanteeda hadaan waxna lagu kala qaadanaynin waajibaadkii diintana aan lagu dayacaynin iyada dhexdeeduna wax xaraan aan lagu sameynaynin nafcina ay u leedahay ruuxa marka dhimala مثلا jimicsi baa ku jira waa la ordaya مثلا orod baa lagu tartamaya مثلا banooni baa la ciyaaraya oo la ordaya laakiin wax way waajibna ma dayacaysid ay aflagaada male jidkii lama qaawinayo kaliya jidka ku jimicsanay jidka ku xoogaysanay oo loo baahay Soomaa marka ciyaaraha noocaas oo kale nafciga leh dhimale ama hadeen ciyaaradu nafci lahayn jidkiina waxa uu soo hiinayso markaas waxa waqti lumiso waa sida muxuu ahay tan muxuu ahay dhalinyarada isticmaalaan miiska inta la dhigo oo qoriga lagu muduudo maxay nala taasoo kale iyo wax macno leedahay ma jiro maskax ma kobciso shirka xoogiisana kuma tarto shirka waxba kuma faa'iideyso waana waqti lumis ciyaaraha labadaas loo kala qaadaa inay nafci leeyihiin iyo inay nafci la'aan yihiin naam جزاك الله خير إن شاء الله تعالى ونسوق بين سؤالك من دنبيبا دواش ونسوق جوين دونا إن شاء الله اللي بس سؤاله وسكاك دوما إسرائيل يا سؤال شكرا وحيلة هاي هول فلين تحفيز يدا هدي لو قرقف عن شقينين كورن هول فلين تحلي هذا يعني واحد حفيز كولي هاي وما تشقيك أو كوكب صغير ده قف عن شقيق ونتي لو قر صامت هاي يلي هاي يسؤال كله حفيز أياش وحولي هاي يعني حفيز ما كشقيا قومت الشقدان وان كما قناهي حدان إمادنا الشقا متى لماشي حدان اسكتشو مشاركة صلاة قطع حالمية شقاء آذان قبلين
مشاهر كيدو حرام وقت الأولى الشيء أو آذن إيماننا مشاهر كيدو حرام تن دولة أتكهل ليسان لكن تن دولة يتهي أدها يتأشخاص توا اسكمت روح با شقا كو درسداي شقada lagu dirsaday ajiib ba tahay waa lagu shaqaaleys shaqada laba nooc waa in la yiraahdo waxaas qabo hawsha dhamee markaad dhameysana intaas aad leedahay inaad mudato waxa lagu leeyahay waxay ku xidhan tahay inaad shaqadii dhameystirto sooma tiirkan dhis baa lagu yiri markaad dhameyso waxaas aad leedahay marka shaqay ku xidhan tahay marna waqtigaaga laga gadanay waxaa lagu leeyahay meesha ii joog muddo 6 saacadood 6 saacadood ee meesha ii joogtana waxaas ku leeyahay haday tahay waqtigaagii waxa laga gatay ama shaqahay ama hayn wayna joogto haday tahay waxa lagu leeyahay shaqo muayana shaqadii markaad qabato ayaad xaq leedahay hada shaqadii musuqmaasuq kalisana waxaad qaadanaysaa wax xaraam hadii muddadii lagu leeyahay ee waxaad ku qaadanaysay aad iyadana musuqmaasuq kalisana waxaad qaadanaysay wax xaraam noqonaya wallahu a'lam jazakallahu khayran kana waa su'aal arday wuxuu leeyahay sheekh waxaan rabaa inaan akhristo cilmiga caqiidada marka qof aanan isku aragti ka ahayn caqiidada ma ka akhrisan karaa iyo sidoo kale goormaa qofkaas waa shaacir la odhanaya markuu intee oo kale yahay ruuxa haddii caqiidadu ka khaldanta عقيدتي كخلدني كما برنكرت مسألة يسقي بكوق العصر مركا ذلك كبرت سوقوق العن مش مركا متك فيق وكوق العين فقه هكبرن متك مسائل عقيدة كوق العصر ده هكبرن لكن هذه مسائل كوق العصر أما باب كوق العصر نسيد خلدنوه فهنسيهم ويا علم كالأوليه هذا هو مركز خلد كيسا سكبت باري كريسو علمي كلا كقاضي مثلا مسائل عقيدة مثلا خلد كجشرة أما بدي عقار كوبولي لكن هو يقالنا علمي نحوذا صوما هذا الخلدات كلا الشيء لا نكرت نحوذي سكبره السلفي كبره فقه جيبو يقالنا خلدات كلا هذا الشيء لا نكرت فاهم سنت هاي فقه كقاضي لأن السلف رضوان الله عليهم وحى الصغن ضد مسائل عقيدة كصابسا كخلدمي بعلمي كقادم جريان هو حكم إذا مثلا رجع السلف كأيمدي سي كم إذا وقال كم إذا إرجاء لقطه مي باكم عقيدة الإرجاء هذا أنا حديث كوي كقادم جريان وهذا قال واحد شيء لقطه مي تشيع نوع الشيعة لما هذا أنا علمي كلام ولا كقادم جريان وهكذا ومثل الإمام الذهبي عليه رحمة الله هدي علماء منكي خلدمه وبابكو خلدمه بعلمي صلقته يا هذا حقيقي علمي لو رأسنا كنا خل الله المسيرين مركب معناه هذا وحويان جارهان مسايشة أصل كعقيدة اللي قلبرت الدين هو نينكا أي كخلديهين أما مذهب خلدان فهنسل هكذا قاضي نينكا وحوش صحيح كقاضي علومتك كرسي كل بساطة وباهن توقت قادر كفتا نكي يقانا والله أعلم جزاك الله خير waxaan ku soo gabagabaynayaa laba su'aalood oo isa saaran mid hore ay tahay xaaskaygii oo dhimatay meherkeeda ma u sadaqayn karaa iyo su'aasha kale oo ah haddii raggu ay leeyihiin jannada haween xurul ciin ah dumarku rag xurul ciin ma leeyihiin haddii raggu la yiri waxay leeyihiin haween xurul ciin oo jannada ay ka helayaan dumarkiina rag noocaas jannada ka helayaan xaaskaaga iyadoo meherkii kugu leh hadday dhimato meherkeediina ay leedahay meherku hanti ay ka tagtay weeye dhaxal bay noqonayaan oo u sadaqayn maysa soo maha ilaana dhaxalka laga tago waa maal iyo dayn dayntu waa xoolo la dhaxlo marka dadkii dhaxalkeeda lahaa oo adigu ka mid tahay haddii markii ay dhimanaysay xadhigku ku hayo isqabteen adigu ka mid baa tahay meherkeedii ay kugu lahay dadka dhaxalka ku leh ka mid tahay
marka waa la dhaxlayaa adiga ubadkeedii wixii ay ka tagtay xoolaha waa la dhaxlayaa midna waan idinku baraarujinayaa haddaynu Soomaali lahay dhaqan khaldan baynu leenahay gabdhaha meherkooda inaan iska haysano Soomaa oo aan ku dhimano waqti sii jirto arrinkaasi waa dhaqan khaldan dumarka meherkooda siiya sida Ilaahay Quraanka ku yidhi wa aatu nisaa صدقاتهن نحلة إلهي باشي محاد وحي haysataa نحلة وحي إلهي inaad markaa haysataan maaha gacantaga geliya ayagu ama ku ganacsadeen ama ha sadaqaysteen ama muxuu ha haysteen ha haysanin Soomaa waa waxaad xubinkeeda taranka ku banaynaystatay waa marka waa qalad raggu inay gabdhaha meherkooda haystaan qaladaadka ku jira waxa kamid ah bal ka warrama gabadh ama haweeney konton sano ka hor lagu meheriyay مثلا qaalin geela gabadha hadii qaalinta geela waaga lagu wareejin lahaa oo Ilaahay u nabad geliyo intee bay tarmi lahayd ya soo geel badan uma noqdeen konton sano kadib odaygii wuxuu taagaya na qaalintii u baad igu leedahay Soomaa dulmi meesha ma ku jira mise kuma jiro dulmi baa ku jira Soomaa waa mid labaad haddaad adoo dayn qaba oo meherka gabadhu ka mid yahay aad ku geeriyooto oo wax ka bixiyo weyn qabriga waad ku gubay magarat mana qaboobaysid ilaa daynta laga gudo nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin baas buu ka qayb galay intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhaqaale iyo xoolo soo galeen oo aaska markuu ka qayb galay wuxuu jiray wardayn ma lagu leeyahay hadii la yiraahdo dayn baa lagu leeyahay uu isaga tagi jiray ku tukadu leeyahay nin dayn qabaaro ku tukan maayo maalmaha kamid ah sidaas oo kale nin baa wardayn ma lagu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam war waa lagu leeyahay nin baa dayn kule rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ku tukada uu isaga tagi kadibna nin saxaabada kamid ah yiraahdo ana daynta qaaday oo bixinay maada qaaday ha oo waa dushaada ha waa ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam markay waxay ka soo wareegtay maalin bay iska hor yimaadeen wuxuu ku yiri wariya wardayntii ma bixisay bay wuxuu rasuulku ilaahay hadda ma ahayd waqti dheer kama soo wareegin haye marda buu hadana is arkeen wuxuu ku yiri wardayntii ma bixisay ha rasuulku waa guday hadda shirkiisu qaboobay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadda shirkiisu qaboobay Soomaali far badan meherkii ay gabdhuhu ku lahaayeen inay qubuurta ugu gubanayaan waa u malay maxay sidaan u fududaysanayno xuquuqda dumarka oo waxaan caadi ah gabdhaha meherkooda siiya ha ku dhimanina hadii ay dhimato waa dayn waana la dhaxlay masalada labaad maxay ahayd xorriyada jannada ku leeyihiin ya raggu maadaama dumar xorriyada loo ballan loo sheegay ragga hadii xorriyada loo ballan qaaday dumarku xorriyada baleeyihiin ayaguna aakhira ma kulli waxuu laxiin oo dumar loo sheegay ma jiray laakiin waxa uu naloo sheegay aakhiro inay rag ku leeyihiin rag la'aan noqon maayaan haweenaydii nin la'aan dhimatay nin baa loo sameeyay haweenaydii ninkeedii u dambeeyey ee ama ay ka dhimatay ama ka dhintay ee aan looga dambeynina xadiidka nabiga waxa ku soo sallallahu alayhi wasallam inay ninkeedii xaas u noqon doonto waa goorma waa hadaan looga dambeyn uu ka hor dhintay nina ugama dambeyn ama iyada ka hor dhimatay waa xaaskiisii aakhiro jannada ay xaas ugu noqonay kuwa kale ee rag la'aan dhintayna rag xurriyada ka qurux badan ayaa Ilaahay jannada ku siiyay tabaaraka ta'ala oo ay xaasas u noqonayaan ma aha ragga kaliya xurriyada loo diyaariyay gabdhaha in la qadilayo ma laakiin xurriyada waxa la yiraahdaa waa sifo dumarku leeyihiin raggu ma laha al-xurriyada waxa waa dumarkii cadcadaay indhaha waaweynaa waa marka sifo rag leeyahay yaa dumar leeyahay rag la siimayo laakiin nusuustu waxay sheegtay labaduba inay jannada insha Allah ta'ala ku leeyihiin wax kasto oo ay jeclaadaan bay ku leeyihiin iska daa dumar iyo baashi wax kasto rabaan ay jannada ku leeyihiin wallahu a'lam jazakallahu khairan allah khairan kusiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala sheekha ka balmariyo
وناقا فرها بدنا وسوء شيء ومدنا الله كون فوق waxaan ka cudurdaaraynaa su'aalo fara badan oo la soo gudbiyeen waqti loo heli karin marka insha Allah taala in badan baa laga jawaabay jazakumullahu khayran ugu dambeyntii sheekh waxay codsanayaan su'aalo soo gaarayay dad xanuunsan iyo ducad gudbi codsanaya insha Allah marka intaas aan kusoo gabagabeynayo Ilaahay taala bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين إلهي تبارك وتعالى أنت جبرن حكمة الله سيو وليس الله كقاضو ماشي كحنو سنيان إلهي حكمة هو بدلو طويل حكمة الله هو بدلو إلهي أجرك سيو أنت نبرد بطل الله كقاضو أنت منصر الله سبحانه أنت منصر الله سياديو أنت همومت هيسو همومت الله كقاضو أنت فقرك وهي حول بركيسن الله سيو روح كستور دباتة قبنا إلهي دباتة كقاضو انت دباتة سيسنا إلهي أجري الثواب كسي سبكنا الله وفجيو بلادنا بلاد آمن وبركيسنا الله كدقو روب بركيسنا الله ينسيو أبارها يوحي الله لك بقي الله ينقى جبيو إلهي عرادها يدباتويك الله ينقى إلاليو تدكى مسلمين تا إلهي قلوبتو ضعي الشعلي سيو ولا لنما إيمان الله سيو قبيلة يسنا عيب الله تبارك وتعالى الله كساره الله تبارك وتعالى قيب سنانت إلهي الشرك إذا الله كقوته شيطان كشركي الله كقوته إلهي قلوبته ذا الشعلي سيو أمني أمان الله سيو دينت الله ينوبركيو علمك الله ينوبركيو قرآنك الله ينوبركيو دعوة الله ينوبركيو علماء يدعاد يتذكر الخير الله ينوبركيو إلهي تبارك وتعالى ربك سنور المساجد كنه كل مين جلدي سبردوس الله ينمو كل مية إلهي جلد سبردوس ينمو كل مية عذاب كيسي عرديس الله ينقى حمديو كو إلهي رالك النغضة وچيكي صداوة الله ينقى مندقو إلهي كو وچيكي صداوة ما نتقيم الله ينقى مندقو حوض كي نبيك كو كعب الله ينقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كو هلا الله ينقى مندقو إلهي تبارك وتعالى خاتمه ونكسر هينقو ديلو ما نتان إلهي لك كلنا مالبه إلا ندق وخير بدل الله قريب أدون كان في تركيز الله ينقى حفظيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.